بعد أركسن يولي بقمر سوغاني لكن أنا واحد إسلاه هاي لبقف وإسكو قلنتي هاي لكن وحي نخدين لبقف والإسكو ديري سداني جيلتها هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميل والباجوتاني يولي باسي كستو نودا وانا سامبا كسو دوادا channelka جامعني باس hadduu ilaahay karaan la noqdo caawa waxaan idin soo qaban doonaa ama waxaan ka hadli doonaa barnaamij oo inta badan laga wada hadlayay youtuberada dhan ay ka hadlayeen ayaan anna ra'yi ahaantayda ka hadli doonaa waa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala karaan noqdo dadkan reaction ka bixinayaan dadka lama ahan waxa waayeen gubad aragsan iyo waliba waxaan reaction ka bixin doonaa qamar sugaani waxaan kaga bixin doonaa meeshii ugu wanaagsaneed ee noloshooda ay ka soo gaareen reaction ka bixin doonaa hadduu ilaahay karaan insha Allah laakiin aniga waxa dadka ay reaction ka bixiyeen kama bixin dooni waxaan ka bixinayaa inta aniga noloshooda aan isleeyahay way u qurux badneed inta isla joogeen ayaan ka bixin doonaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala karaan noqdo haddana waxaan soo qabanayaa mid kamid ah heesaha aadka loo jecel yahay ugbad aragsan qaaday ugu talgashay ninkeeda qaaska ahay qamar sugaani intaas aan daawan doonaa kadib aan kari doonaa كداري باتهاي دوشوب حتى نهاي ككتوك ساداتهاي طبعا dadka markay is jecel yihiin farxad ay ku nool yihiin dad qaar baa jiro farxadooda ka soo horjeedo qof walba oo heestan daawanayo commentiyada ugu badan ee laga soo qorayo xitaa heesta waa labadooda lagu amaanayo haddana si kama marno dadka is jecel dadka dhagarta u dhigayo nalka daaray baatahay dushooba xataa nahay ka ku toogsaada tahay ضيحف حتى نهاي نلka daaray baatahay dushooba xataa nahay واتاي مقالكن سان ku joojin doonaa haduu ilaahay karaan insha Allah maqaalkan ku soo laaban doonaa laakiin se waxaan ka hadli doonaa qamar sugaani qamar sugaani intuu ku sugnaay Somaliland wuxuu lahaa shacbiyad badan ayuu lahaa taageerayaal badan ayuu lahaa dabcan markii uu aaday Soomaaliya ama Muqdisho aadayna dabcan markuu soo laabtayna fankiisa hoos u dhac ayuu ku yimaaday qamar sugaani dabcan arin badan oo bulshada ka yaabisay ama sumcadiisa lagu dilay ayaa lagu sameeyay hadii ay tahay mid run ah iyo hadii ay tahay mid been ba taas kama hadleeno laakiin qamar sugaani dabcan bulshada intuu ka joogay qoftiisa sheegayso maxay leedahay adna dunidi baatahay daymadii hadanahay adna dareenki baatahay daymadii hadanahay واتاي كدب markii ay soo ifbaxday qamar sugaani in gabar soo wacday dabcan ma garanayo inay run tahay ama sax tahay markii soo baxday qamar sugaani gabar uur u leedahay sheegatay social media is qabsadeen dabcan dad badan ayaa ku aaneynaya dhahaya maadaama fanaanka aad loo jecel yahay khaladkaas inuu sameeyo ama khaladkaas ee dhacday inuu sameeyo inuusan sameeynahayn ayaa cause graynaysa in macnaha isku dhac labadooda ay keenaan ugbad aragsan iyo waliba qamar sugaani wali waxaan ku jirnaa farxadii laga soo tagay qamar sugaani iyo ugbad aragsan haywad ayada amaanayso amaan xaaskiisa ugu horeen dugsidaba hataa nahay adna deerki baatahay haddaan duuya ku ahay adna dunidi baatahay daymadii hataa nahay
adna dareenkii jooji marka adiga bulshada magaca ku dhex leedahay waxaa dhacaysa dad badan oo adig ku necab dadkaasna waxyaabaha ay ku nacayaan ma garanayaan laakiin waa iska kaa necab yihiin khamar sugaali dabcan waa fanaan dhaafay waayahan dambana fanka kusoo biiray dardar weynna la soo galay fanaan sugaani sida usoo aanbaxayba waxaa daba dhigtay dhibaatooyin fara badan oo fankiisa ku saabsan hadda sida baraha bulshada lagu soo wada qorayo Facebook iyo Instagram iyo Twitter meelo badan lagu soo qorayo ayaa waxa la sheegayaa labadoodaba isqiyaaneen khamar wuxuu la socday gabar ogbaad ayadana waxay la socotay wiil laakiin anaga taasna ma qosayso anaga waxaan wax ka bixinaynaa kaliya farxadda ay soo dhaafeen dabcan heestan ayaa ka dhigayso heesaha ugu wanaagsan ee dadka lamaanayaasha isqaba ama isjecel ugu wanaagsan ani ahaan isleeyahay hay labada khuwaadagto isku diranina nahay soo diiwaanka may gelin mideeda kale labada qof isqaba haddii ay yihiin dad steeringkooda jilacan yahay ama dad masaakiin ay yihiin ama dad afgaaban hadday yihiin badanaa waxaa laisku daya in laisku diro ma garanayo dadka afaarahaas u sameynayaan waxyaabaha ay ka helayaan qoys dhan faraxsan inaa ku bedeshid murug ama aa ku bedeshid buuq iyo khayla dabcan adiga daawan doona ama adiga aad tahayba qofka isku dirayba dabcan wax wanaagsan maysan ahayn in laba qof oo isku faraxsan inaa isku dirtid ama aa kala geysid hadda dabcan ilaa hadda ma xaqiijin karo yani inay kala tageen laakiin baraha bulshada zaaid baa looga hadlayay inay daragsan iyo weliba khamar sugaanay laakiin aniga waxaan isleeyahay laba qof oo isku qalantay ay ahaayeen laakiin waxay noqdeen laba qof oo la isku diray sida aniga ila tahay ka ku toogsada tahay حفاهاتانهاي نالكداري باتهاي دوشو بحاتانهاي لك كدوك ساداتهاي لا 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 دوك سدبا حتانهاي أدنى ديركي باتهاي حتان دوهو يكو أهاي أدنى دوني باتهاي intii muuqaalkan markaad daawanaysid adiga xitaa heesta dabcan laga yaabo inaa hore u aragtay laga yaabo inaa hadda kugu horeysay runtii heesta aad bay u qiraysan tahay aad bay isla jilayaan aad bay farxad ugu muuqataa aniga heestan markaan arkayay aad baan ugu farxay sababta ugu farxay waxay ahayd laba qof oo isqabo haddana isku faanayo haddana is amaanayo dabcan macquul maaha wax lagu farxo waayo iyo wata adna dunidi baa tahay daymadii hataana adna dareenkii baa tahay jooji farxadda ka muuqata labadoodii lama soo koobi isigay dariilo labada khuwaadagto isku diraniinan nahay soo diiwaanka may gelin isigay daryeelo labada khuwaadagto isku diraniinan nahay soo diiwaanka may gelin isigay daryeelo labada khuwaadagto isku diraniinan nahay soo diiwaanka may gelin soo diiwaanka may gelin isigay daryeelo labada khuwaadagto isku diraniinan nahay weli waxaynu ku guda jirnay qabii ugu dambeeyay reaction aan ka bixinaynay qamar sugaani iyo weliba ubad aragsan labada qof koodii markii ay isguursanayaan dabcan waxay kasoo dhisaan guriga qeybaha ugu hooseysa ama asaaska ayay kasoo adkeeyaan ma las dhihi karayaa
qamar sugaani iyo Ogbaad Aragsan markii koowaadba si fudud ay isku guursadeen maadaama hada arintii gabadha uur ayaan qamar ku leeyahay markii ay soo baxday waxa laga rabay inay gacmaha isqabsadaan arintaas ay sare u qaadaan xoog aysan micna ka yeelin laakiin noloshoodii iyo ayahooda dambe ay ka fikiraan Soomaysan ahayn mise waxa la isdhihi karayaa guurka ayayba ku degdegeenba waata ku maasantahay sidoo aan wanaagsan oo daawanaysid hadii aad muuqaalkan ka heshay dabcan labada asxaabtaadi sidoo kale comment like raygaaga oo noogu bixin kartaa ka soo dhaw mar kale waad ku maasantahay Indianapolis, Miami, Bonnefe.